بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka wariyaha ee idaacada kulmiye oo jimco waliba xilligan oo kale aad ka yihiin ka dhageysataan. maantana barnaamijka waxaan uga hadlaynaa kulan toddobaadkii la soo dhaafay dhexmaray guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan iyo sidoo kale bahda saxaafadda loogana hadlay habka loo marayo tabinta wararka doorashooyinka la rabo in dalka ka dhacaan. sidoo kale waxaan eegi doonaa maxaa saxaafadda looga baahan yahay marka laga hadlayo ololaha doorashada ee xisbiyada iyo sidoo kale musharaxiinta kala duwan dhexmaraya. barnaamijka aniga Cabdiqani Cabdilaahi ayaa idin la socodsiinaya Shariif Sheekayna oo farsameynaya waa mar kale iyo kulanka wariyaha ee idaacada kulmiye. haddii aad wariye tahay warbaahinta waxaa la yidhi haddii aad wariye tahay warbaahinta waxaa la yidhi waa waran laba able warkaad sheegaysa hubi waa waran laba able warkaad sheegaysa hubi. waa dhageystayaal qaybaha hore ayaad la socotaan ee barnaamijka kulanka wariyaha oo idaacada kulmiye ee Muqdisho idinkaga imaanaya. maalintii Axad ahayd ee la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan dhexmaray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sidoo kale bahda saxaafadda gaar ahaan xubno ka socday xarumaha warbaahineed iyo sidoo kale ururada warbaahinta. Muqdisho si guud iyo gobolada dalka ay ka socdeen dhanka warbaahinta marka loo fiiriyo xubnaha matalay guddiga doorashooyinka oo kulankan soo qaban qaabiyayna waxay sheegeen in uu talagaleen wacyigelin iyo isfaham ku saabsan sida saxaafadda ay guddiga doorashooyinka ula shaqeynayaan marka la gaaro doorashooyinka la rabo inay dalka ka dhacaan waqtigooda. kulankan ayaa marka uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda ka dhex bilowday hadalhayn ku saabsan inuu jiro xeer ay guddiga doorashooyinka diyaarinayaan kaasi oo ay rabaan in ay bahda warbaahinta kula dhaqmaan marka doorashada la gaaro. xeerkaas oo xakameynaya dhaqdhaqaaqa wariyeyaasha xilliga doorashada. haddaba gordha waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray oo aan wax ka wareystay xoghayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdulla Axmed Muumin oo hay'adaasi ama SJS xubno ka socday ay ka qayb galeen kulanka saxaafadda iyo guddiga doorashooyinka inagoo qaybaha dambe eegi doona waxyaabaha saxaafadda looga baahan yahay. Cabdulla Axmed Muumin ayaa wuxuu ka warramayaa walaaca laga qabo in caqabad ay wariyaashu la kulmaan xilliga doorashada. Cabdiqani aad ugu mahadsantahay adiga iyo radio kulmiye aadam idin salaama mar kale Jimca Karim. kulankaas wuxuu ku saabsanaa barnaamij wacyigelin u ah saxaafadda ama warbaahinta iyo wariyaashaba oo la rabay in looga hadlo ama wariyaasha loogu sheego doorashooyinka dalka ka dhacaya oo guddiga doorashooyinka ay qoran qaadinayaan haddii ay suuro galaan. ujeedaduna waxay ahayd in ay ku soo bandhigaan qaabka ay rabaan in wariyaasha ama saxaafaddu ay u tabiso doorashooyinka soo socda. team ama koox ka socota ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS ayaa ka qayb galeen maadaama guddigu casuumaad noo soo direen ilaa 4 qof ayaan u dirnay. waxaana meeshaas aan fursad u helnay inaan ka bixino talooyin aan u arkaynay muhiim inay u tahay saxafiyiinta Soomaaliyeed in madax bannaanidooda la ilaaliyo mar kastaba doorasho la'aan warbaahintana la siiyo xuquuqda ay ku leedahay in ay noqdaan kuwa maaragtay si hufan u tabin kara doorashada u tabin kara sida caalamka ka dhacda ayaana anaga soo jeedinaynay talooyin la mid ah. waxa ugu weyn oo walaaca aan ka qabnayna waxay ahayd in guddigu ay soo saareen documenti ay kaga hadlayaan habraac ay rabaan in wariyaasha saxaafadda ay ula shaqeeyaan oo ay ka mid tahay inay ku soo rogaan in ID card guddigu uu leeyahay la qaato in ciddii ID cardkaas aan helin idaacadaha iyo telefishinada iyo dhammaan warbaahinta iyo wariyaashuba haddii aysan helin ID cardkaas aan la siin doonin xuquuq ay ku tabiyaan doorashada dalka ka dhici doonta. sidoo kale waxay soo rigayaan shuruud kale oo tilmaamaysa in warbaahinta ama wariyaasha inta ID cardka aan la siin ka hor in lagu qasbi doono inay saxiixaan xeer oo is-afgarad ah ama isfaham camal ah oo maaragtay warbaahinta ama wariyaasha ay ku ballan qaadayaan in sida guddigu u rabo ay u shaqeynayaan. arrimahaasna waxaa ku jira waxyaabo xoogaa walaac leh oo dhibaato ku ah saxafiyiinta adduunka meelo badan ay saxaafaddu wararka ka tabiyaan xilliga doorashada laakiin weli ma dhicin waxa hadda guddiga doorashada Soomaaliya ay wadaan wax la mid ah weli ma dhicin. arrintaas ayay marka ku saabsanayd kulanka iyo baaqi ka dambeeyay aan soo saarnay. waayahay kulanka waxyaabaha keenay marka hore haddii aan diiradda saarno maxaan ka ognahay? kulanku waxaa
muhiimadiisu weyn waxay cabdiqani ka timid guddiga iyaga codsaday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka horta iyaga codsaday waxaan ogtahay in muddooyinkan bal la hadalhayay Soomaaliya doorasho ma ka dhacaysa ma ka dhici doonto iyo arrimo noocaas iyo in laga hadlayay sidoo kalena in maaragtay laga hadlayay sida doorashada ay noqon doonto ama in ay furnaan doonto doorashada oo ay noqon doonto doorasho furan oo dadka oo dhan maaragtay ay ka wada qayb gali karaan marka ujeedadu taas ay ahayd qaybtan waxay ku saabsanayd warbaahinta inay helaan fursad ay heli karaan oo ay maaragtay ku tabin karaan doorashada arrintaas ay maaragtay ku saabsanayd waayahay marka laga hadlayo guddiga waxyaabaha ay soo bandhigeen oo warbaahinta ay la wadaageen sida in ay dhikaaro iyagoo ay bixinayaan ay saxaafadda uga qayb geli doonaan tabinta doorashooyinka iyo qodobka kale ee ku saabsan in xeer la kala saxiixanayo ama afgarad ka hor inta aan shaqadaasi la guda gelin la kala saxiixanayo halkay ku dambeysay maxaa xal ah oo laga gaaray annagu ka ururka SJS ahaan arrintaas waan diidanahay talo qoraal ah ayaan cabdiqani siinay guddiga gaar ahaan guddoomiyihiisa iyo dadka u qaabilsan saxaafadda taladaas qoraal aan ku siinay talooyinkaas qaybta saxaafadda ku saabsan iyo qaybta guddiga ku saabsan ayaan soo jeedinay qaybta ku saabsan guddiga waxay tahay guddiga waxa uu soo jeedinay in marka ugu horeysa doorashooyinka xilliga ay dhacayaan oo ay dalka ka dhacayaan inay u ogolaadaan saxafiyiinta inay iyaga samaystaan waxa la yiraahdo xeerka habdhaqanka anshaxa saxaafadeed oo tifaftirayaasha warbaahinta iyo ururadooda iyo warbaahintooda inay iyagu samaystaan oo iyaga loo madax banneey oo aysan noqon wax guddigu ku soo rogaayo halkaas waa inay caddaataa sababtoo ah xeer kasta iyo anshax kasta oo saxaafadeed oo la sameeyo waxaa samaysta wariyaasha marka ayaa samaysta marka waa in taas ay caddahay arrinta labaadna waxay tahay wariyaasha in lagu caawiyo siday u samaysan lahaayeen xeerkan siday u samaysan lahaayeen lagu caawiyo oo kulamadii iyo maaragtay talabixintii wixii laga caawiyo annaguna diyaaraan nahay inaan maaragtay caawino maadaama ururadii dalka ka jira ka mid nahay arrinta kaloo meesha ku jirtana waxay tahay waan soo jeedinay waxay tahay in dadka doorashada taageeraya Soomaaliya ay iyaguna ka qayb qaataan sidii arrintaas wariyaasha loogu madax banneyn lahaa wariyaashuna waxaan kula talinay inay samaystaan hab ay ku shaqeeyaan sidii doorashada tusaale ahaan haddii qaladaad ay dhacaan oo habka tabinta wararka waxay ka yimaadaan in ay idaacadaha iyo telefishinada ay samaystaan nidaam ay ku sixi karaan oo qofkii cabanaya cabashadiisa lagu dhageysan karo haddii qalad laga sameeyey in saxaafaddu ay hesho waxa la yidhaahdo access ama inay u hesho gaaris ay gaari karto dhammaan goobaha doorashooyinka ay ka dhici karaan tusaale sida caadiga ah adduunka wariyaashu waxay ka mid yihiin goobjoogtada doorashada la socda oo doorashada ka ilaaliya in musuqmaasuq iyo isdabamarin iyo ka dhaca wariyaasha ugu horeeya marka annagu waxaan rabnaa in wariyaasha inta la madax banneeyo loo ogolaado goobaha doorashada loo ogolaado dhammaan musharaxiinta tartamaysa inay wareysan karaan loo ogolaado in natiijada doorashada ay ogaan karaan oo ay la socon karaan loo ogolaado goobaha codbixinta ay ka dhacayso loo ogolaado qaabka ay doorashada u dhacaysa inay wariyaasha la socdaan waxaan diidanahay marka meeshaas in la dhaho inta fariista annaga doorashada natiijada idiin soo tabinayno kadibna isticmaala saasaan diidanahay annagu waxaan rabnaa wariyaashu inay indhahooda kusoo arkaan sida wax u socdaan dhammaan goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan oo dalka ah ee loo qoonday inay ka dhacaan waaya marka la fiiriyo xilligan iyo sida lagu wajahayo iyo waqtiga ka harsan oo aad u kooban ma kula tahay in xarumaha warbaahineed aysan weli ku baraarugsanayn natiijada ka dhalan karta tillaabooyinka xilligan la qaadayo tusaale ahaan waxaa ula jeedaa in warbaahintu aysan weli ku baraarugsanayn sida hadhow ay caqabad ugu noqon karto qodobada hadda muuqanaya aad iyo aad arrintaas waa ii muuqataa in aysan maaragtay bahda warbaahinta Soomaaliyeed aysan arrintaas weli ku baraarugsanayn waa arrinta waxay la mid tahay arrintii sharcigii saxaafadda oo bahda warbaahinta inteeda badan ay mooday inay aad ugu baraarugsanayn oo keliya ay soo baraarugeen saacadii ugu dambeysay ama daqiiqadii ugu dambeysay ay soo baraarugeen haddana tii oo kale ila muuqata xeerkan cusub ay guddiga doorashooyinka wadaan waa dhibaato waa halistiisu leeyahay haddaan hadda la diidin oo laga hortegin warbaahintu waxay rabtaa inay hesho xuquuqda ay leedahay oo adduunka ka jirta mid la mid ah Soomaaliya adduunka dhowr jeerna waa sheegay waxay uga duwan tahay ma jirto waa in marka dadka bahda warbaahinta cabdiqani ay xilligan baraarugaan oo ay gartaan in ay qayb ka yihiin
geedi socodka maaragtay dalka ka socda oo la'aantooda ama warbaahin furan la'aanteed ay doorasho jiri karin warbaahin xura la'aanteed ayna jiri karin oo la iyo musharax uusan jiri karin marka waxaan rabnaa in warbaahinta ay hesho xuquuq buuxda oo dhammaystiran oo ay ka mid noqdaan korjoogtada la ixtiraamo inay ka mid noqdaan oo maaragtay goobaha doorashada si oo furan oo maaragtay waxba la qarinayn ay uga soo warrami karaan hadhowtina aan loo diidin laguna xujeynin ID kaarka oo hadda guddiga ay rabaan inay dad kooban intay siistaan hadhowtina ay yidhahdaan warbaahintaas keliya tabin doonto doorashada cid kale ma tegi karto arrintaas waa arrin hadda annaga aan kasii baaqayno oon kasii digayno rabnana in maaragtay bahda warbaahinta Soomaaliyeed saaxiibadeen ay ku baraarugaan waayahay ugu dambeyntii su-aasha rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay marka laga hadlayo tabinta doorashada adigoo soo koobaya si guud saxaafadda maxaa looga baahan yahay inay maraan si ay bulshada uga qabtiraan wararka sugan ee ku saabsan doorashada iyo sida ay u dhacayso cidda ku loolamaysa natiijooyinka hordhaca iyo kuwa ugu dambeyntaaba su'aal fiican marka doorasho ay wadan ka dhacayso saxaafaddu waxay ka qaadataa kaalinta koowaad uguna muhiimsan waa halka musharaxiintu ay isku soo bandhigaan waa halka dadka codka bixinaya ee shacabka ah ay go'aan ku qaataan oo ay kala ogaadaan musharaxa ay codka siinayaan xildhibaanka ka ay u dooranayaan kan ay u dooranayaan gudoomiyaha gobol kan ay u dooranayaan xilka madaxweyne waxaasoo dhan dadka u tartamaya codka ka raadsanaya shacabka waxaa indhihi dhego waa saxaafadda marka haddii aanay saxaafadda xura jirin way ku adkaanaysaa shacabka inay go'aan ay qaataan oo ay hadhowta codkooda si saxa u dhiibtaan arrinta labaad waxay tahay saxaafaddu waa macallin dadkay waxay baraysaa qaabkay codka u dhiibanayaan doorashada ay u geli lahaayeen waraaqaha noocay u eg yihiin sida loo codaynayo meesha suurka la saarayo maxaa laga rabaa qofka sidee laysu diiwaangeliya waxaasoo dhanna saxaafaddaa dadka barta hadday saxaafad xura jirin oo saxaafadda indhaha iyo dhegaha laga xiro hadhowta waxaa dhici doonta markaa doorasho aan ahayn xalaal ahayn oo aan daafurnayn ayaa dalka ka dhacaysa annaguna haddaan saxaafaddii nahay waxaan u ololaynaa mar walbaba in nabad iyo barwaaqo iyo kale la gaaro iyo xasilooni nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni waxaa lagu gaaraa kow in saxafiga uu maaragtay sheegi karo ceebaha iyo daliilaha iyo dulduleelaha si qaladaadka loo saxo taas waan midaan rabnaa annaga u ololeynayno aan mar walba u taagannahay saxaafadda waxaa kaloo laga rabaa su-aashaas haddaan sii wado jawaabteedii in doorashada markay dalka ka dhacayso ay si fiican wariyaashooda ugu tababaraan ugu diyaar garoobaan habka tabinta doorashooyinka oo ay ka mid tahay natiijooyinka hordhaca falanqaynta loo baahan yahay in la sameeyo maaragtay sida axsaabta ama xisbiyada ay isugu xiran yihiin ama sida doorashadu ay ku soo baxayso aqlabiyadda iyo maaragtay iyo dadka lagada maaragtay xisbiyada laga badan yahay kuwa badan sida ay ku soo baxayaan waxaasoo dhan saxafiyiinta ay fahmaan tahay marka waa cashar kale oo iyadana u baahan saxafiyiinta in la baro iyaguna ay saxafiyiinta dadka sii baraan waxaasoo dhan ayaa maaragtay looga baahan yahay wariyaasha Soomaaliyeed haddana marka waa tan aan leenahay wariyaasha fursad hala siiyo si ay xeerarkan ugu diyaarsadaan ha laga caawiyo dhaqaale ahaan iyo maaragtay aqoon ahaan ha laga caawiyo annaguna diyaar aan nahay wixii aan karan jirna inaan qabanno KSJS ahaan inaan ku darno diyaar aan nahay waana tan hadda guddiga ka codsanayno beesha caalamka ka codsanayno dowladda Soomaaliyeed maadaama iyada ay doorashadu tahay cidda markaa gacanta ku qabanayso haysa ay tahay iyadoo aan ka codsanayno laakiin haddana in la xaqiijiyo madax banaanida saxaafadda marnaba inaan la faragelin ومحسن هاي كاس وحاوها عبد الله أحمد مؤمن صاحب يالوها نجح حسوسنا إن نحريرني قدوميها قدي قدورشوين كا ماذا حبنا قرنك سيان وحقوي دينه إذا ماها يتوشدا يعولع أي ورياش وقبانا صاحت ما يسنك جواب وعتان كنا مركب جوه الرئيس يعني هلنا برنامج ده النصوص عدا أياتهم على دونتان هدي عبارة عليك النقطة مركن هدي عندنا عكلا فيرنه wariyaasha ayaa mararka qaar waxaa la sheegaa in loo baahan yahay wacyigelin loo sameeyo kuna saabsan sida loo wajahayo waqtiga doorashada iyo loolanka adag ee musharaxiinta iyo xisbiyada kala duwan dhexmaraya saxaafadda madaxa bannaan ayaana ah halka ay bulshadu ka helaan wararka sugan iyo sidoo kale kala doorashadooda ku saabsan hadba cidda ay ku aaminayaan wasiirka dalka wariyaasha ayaa la sheegayaa in looga baahan yahay in ay aad uga taxadaraan wararka ku saabsan doorashooyinka sida uu sheegay Mahad Jaamac Koronto oo ah tababare saxaafadeed marka koowaad horta xilliga ololayaasha siyaasadeed oo socdaan wariyaha waa xilliga ay ugu adag tahay in uu ka warramo xaaladaha taagan maxaa yeelay waxa aad u badan shucuurtii dadka oo kacsan
dadkiyo yani xamaasadaysan sheekooyinkiyo si xamaasadaysan loo tabinayo ayaa aad u badan marka wariyuhu marka waa marka ugu baahida badan yahay in uu ku shaqeeyo si dhexdhexaadnimo ah oo warkiisina uusan bias u noqon sheekadii uu baahinayay aysan bias u noqonayn oo ay si dhexdhexaadnimo ah oo wanaagsan uu u baahinayo yani waa marka ay ugu mudan tahay inuu qofka wariyaha uu is ilaaliyo maxaa yeelay markaas wixii lagu barto ayaa warbaahintiisa iyo isagaba lagu shaabadaynaya oo lagu timbaraynaya ka noqon doona ethicska anshaxa saxaafadda iyo waxa uu ka qabo lambarka labaad qaabka looga soo warramo marka doorashooyinkii oo olayaasha siyaasadeed ay socdaan sida looga soo warramo iyo sida ay muhiimka u tahay in warbaahintu ay siyaasad usoo degsato marka olayaasha siyaasadeed ay soconayaan midda koowaad horta wariyaha iyo siyaasadda yani warbaahinta iyo siyaasadda marka koowaad horta wariyuhu siyaasi ma noqdo siyaasi iyo wariye dad badan baa waxay aaminsan yihiin wariyaha iyo siyaasiga xiriir uu ka dhexeeyo xiriirka keliya uu ka dhexeeya waxa weeyaan isla xisaabtan iyo inuu noqdo kii ilaalin lahaa wariyuhu cidna uma xagliyo xukuumadna lama safna xisbina weligii ma gelin waa sida hadda uu lahaa heesta ay lahayd yani ma noqdo xisbina ma galo dowladna kama mid noqdo cidnana lama safto laakiin isagu wuxuu la sabtaa mar walba sida ay wax ku saxmi lahaayeen oo xogta runta ah dadka loogu soo gudbin lahaa sababtoo ah waa codka dadka weeyaan marka dad badan baa aragtahan aaminsan in saxaafaddii iyo siyaasaddii iska agdhow yihiin oo ay isku xiran yihiin waxa keliya isugu xiran yihiin waxa weeyaan isla xisaabtan iyo ilaalin waa halkii laga ilaalin lahaa yani siyaasiyiinta khaladkooda iyo falalka khaldan ama tallaabooyin khaldan hadday samaynayaan iyo hadday khalad ku dhacayaan halkii laga ilaalin lahaa weeyaan wariyanimadu laakiin maaha halkii loogu ololayn lahaa iyo halkii laga geli lahaa midna maaha salaan laga galana maaha siyaasaddu saxaafadda yani saxaafaddu maaha siyaasadda meel laga galo maaha marka weliba yani adigu waad joogaysaa tusaale ahaan qof baa waxaa laga yaabaa inuu yani 4 madaxweyne oo iska kala bedelay meesha 4taa madaxweyne iyo xukuumaddiisii ilaa 10 madaxweyne iyo xukuumadahoodii iyo wasiiradoodii inuu la soo shaqeeyo kan ugu sarreeya siyaasadda galana madaxweyne noqdaa madaxweynuhu 4 sano 5 sano kadib ama 2 teelan kadib waxa laga yaabaa inuu soo noqon laakiin siyaasigu wariyuhu wuxuu joogayaa ilaa deynta cimrigiisa ka dhiman ayuu joogayaa markastana wuxuu leeyahay baawarkiisii iyo awooddiisii uu lahaa markii uu yani soo galay saxaafadda ilaa hadda sidii buu u leeyahay marka saasay u kala duwan yihiin qodobka kale haddaan guda galno mawduucan waxa weeyaan marka koowaad horta waan kala qaadaynaa siyaasaddii iyo waxaan kala qaadanaa iyo journalismkii ama wariyanimadii wariyanimadu waxaa sida hore aad cashar qaar ugu aragteen casharada qaar intiinii aragtay koronta trainings casharada aan soo geliyey doorka wariyaha waxaa qayb ka ah inuu noqdo qof la xisaabtama kuwa awoodda leh ee laga yaabo inay awoodda si khaldan u adeegsadaan inuu la xisaabtamo mar haddii aad la xisaabtamaysid marka kuwaas oo aad xisaabtan samaynayso qofka uu samaynayo waxaa hubaal ah inay muhiim tahay yani in qofkii uu noqdo qof madax bannaan oo dhexdhexaad oo ama ay yani anigu waxaan idin sheegay haddii cidii ay igu soo amrayso dee waxaa ciddaas aan u shaqaynayo ay ogosha un baan idin sheegi karaa laakiin wixii kasoo horjeeda idinma sheegi karayo waa xilliyada marka ugu adag xilliga wariyuhu uu olayaasha siyaasadda uu baahinayo ay ugu adag tahay maxaa yeelay dareenkaas ka badan ee kacsan waxaa loo baahan yahay marka qofkii inuu noqdo qof daacad ah yani cadaalad ah oo si cadaalad ah wax usoo gudbiya sidoo kalena uu iska ilaaliyo inuu dhinac u xagliyo oo bias war uu soo gudbiyo isaguna dhexdhexaadnimadiisii uu ilaaliyo markasta qofka wariyaha inuu dhexdhexaadnimadiisii ilaaliyo waxaan aragnay wariyaal badan oo yani markay hadlayaan aad moodaysid inay yihiin afayeenkii ciddan ay u hadlayaan inay yihiin waxyaabaha dadka yani ay dhibsadaan ama dila sheekada wariyuhu uu ka warramayana waxaa kow ka ah in qofkan wariyaha ahi uu isagu yani dareenkiisa uu la mid noqdo sidii dadkii boorka watay ee suuqa meesha taagnaayee soo dhaweynayay qofkan siyaasiga soo dhaweynayay maxaa yeelay markaad adigu dareenkaaga uu sidaas noqdo inooma sheegi kartid wax sax ah wax runa inooma sheegi kartid oo waxaad la mid tahay kuwii aad la rabay inaad yani adigii u warrantid baad la mid tahay oo adigiiba emotional noqday tan kale qofka wariyaha ahi maaha inuu noqdo qof la isticmaalayo inuu noqdo maaha waxaan aragnaa ololayaasha siyaasadeed inta badan waxaa lagu baahiyaa oo lagu soo sheegaa wax ah
anigu faan waxa amaan iyo wax faana iyo bramburo iyo gabayo iyo dadku waxay doonayaan waxaas maaha dadku waxay doonayaan waxa weeyaan qofkan sharaxan ee doonaya inuu hogaamiyo ee uu u qabto talada ayaan doonaynaa in la baro waxaan doonaynaa in qofkan la baro cidda uu yahay waxaan doonaynaa in qofkan go'aankii aan ku dooran lahayn si uusan khalad u noqon aad runta nooga soo gudbisay laakiin adigu sida aad wax u sheegaysay hadday maamusho lacagta aad qaadatay dadku waxay gaarayaan go'aan khaldan oo aan ahayn mid saxan doorasho khaldan baan halkaa ka imaanaysa haddii qofkii wariyaha ahay uusan yacni runta uusan nooga soo sheegin qofkan marka uu qofka nooga warramayo musharax ahana ama doonaya inuu dadka hogaamiyana ama ololaha siyaasadeed ku jirana waxaan u baahnaa inuu noo sheego qofkan yacni wax aan ku arki karno inuu wax noo qabanayo annaga haddaan nahay dadkii shacabka ahayee go'aanka lahaa ama cidda ama dooranayay cid doorashada lahaa haddaynu marka aynu leenahay marka haddaynu markaa helno wax saxa oo aanu go'aan ku gaari karno way sahlanaanaysaa inaan gaarno go'aan saxan oo aanu cid ku dooran karno laakiin haddii uu ololo noqdo shaqadii wariyaha waxaan gaaraynaa go'aan khaldan waxaan gaaraynaa wax aan sax ahayn waxaan dooranaynaa cid aan sax ahayn waxaana nama hogaanka noo qabanaya dad aan mudnayn inaynu hogaamiyaan maxaa yeelay waxa meesha lagu yimid waa lacag midda kale sheekooyinku markay galaan olole siyaasadeed haddii wariyihii ama warbaahinta ay ka qayb gasho ololaha siyaasadeed waxaan ognahay warbaahinta lacag bay ku bixiyaan lacagta warbaahinta ay ku bixinayaan waxa ay sababtu waxa weeyaan loo bixinayo lacagtaasna in iyaga ammaantooda laga sii daayo oo dhammaan waxa laga sheegayo ay noqdaan wax xayeysiis ah ay noqdaan xayeysiis u baxaa wax advertisement uu noqdo waxa baxayo dhan haddii waxa baxayo dhan ay xayeysiis ay noqdaan oo advertisement uu noqdo oo warka laga sheegaya uu noqdo xayeysiis shirka loo soo gudbinaya uu noqdo xayeysiis qofka booqashada meel u tago uu noqdo xayeysiis wax walba uu xayeysiis noqdo dadkiiba meesha xuquuqdooda ay ka maqan tahay yani dadkii shacabka ahaa xuquuqda u lahaa inay war saxa helaan inay go'aan saxa helaan dabeetana ay doortaan ciddii saxda ahayd ayaa waxaa meesha ka baxaya wixii ay go'aanka ku gaari lahaayeen baa meesha ka baxaya waxaad marka wariyuhuna wuxuu iibsanayaa awooddii uu lahaa iyo kalsoonidii ay shacabka ku qabeen ayuu iibsanayaa oo qofkan musharaxa ah ama qofkan ololaha siyaasadda u wado uu ka iibsanayaa waxaa kaloo iyadana xusid mudan oo aad u badan warbaahinteena ugu badan marka inta badan musharax ama siyaasi la soo dhaweynayo ama ololo siyaasad la samaynayo waxay isticmaalaan wariyaasha qaarkood ereya yani adagoo aad arkaysid in ay qayb ka tahay yani rabitaan inay qayb ka tahay isagu inuu doonayo waxan tusaalahaan oo kale madaxweynaha aan la dhaarin nin aan la dooran oo socda ayaa qof wariyaa waxaad arkaysaa facebookiisa inuu kusoo qoraya ama warkii uu sheegaya ku baahinaya isagoo leh madaxweynaha aan la dhaarin madaxweynaha dhaarta kaliya u dhiman tahay hogaanka yani xisbiga hogaanka qabanaya xisbiga shacabka kalsoonidooda haysta qolada shacabka yani waxaasoo dhan waxay meesha ka saarayaan dhexdhexaadnimada meesha ka saaraya waxaa lagu arkayaa inaad tahay qof dhinac u socda oo dhinac ka hadlinaya markaan mawduucan soo qoray wariyaal badan baa ila soo xiriiray waxay weydiiyeen su-aal ah dhowr qof baa waxay weydiiyeen su-aal ah warbaahintii baa lacag ka qaadatay qofkan siyaasiga ah si loogu koforgareeyo yani activitiesa hadday tahay ololihiisa iyo wixiisa anigana waa la ii diray ka wariye ahaan maxaan samayn karaya horta warbaahintu inay siyaasiga lacag ka qaadato dadka ha u sheegto inay siyaasiga lacagta ka qaadatay dadka ha u sheegto ha lagu soo qoro halkaas ha la yidhaahdo ololaha waxaa maalgeliyey yani siyaasi hebel ama xisbi hebel ama koox heblaaya maalgelisay hana loo sheego maxaa yeelay annagu idaacaddan ama tv-gan ama wargeyskan ama websitekan warbaahintan aan yani akhrisanayno ku xirannahay kalsooni baan ugu xirannahay waana aaminaynaa kalsoonidayna marka si loo ilaaliyo oo aan go'aan saxan u gaarno hana loo sheego cidda maalgelisa waxan hana loo sheego cidda waxaan fangaraysay maalgelisa markaas waxaan garanaynaa inaysan waxanay ahayn wax u qalma in go'aan lagu gaaro oo la dhegaystay inaysan ahayn ayaan garanaynaa laakiin haddii aad war igaga dhigtid warku waxa weeyaan wax lasoo hubiyey lasoo dhexdhiitiyey dhexdhexaadnimo ah dadku markay dhegaystaan ama daawadaan ama akhristaan ay tahay inay go'aan ka gaaraan waxaa hubaal ah inaad anigii si khaldan iyo isticmaashay inaad go'aan khaldan isiisay inaad aaminaadda aan ku aaminay inaad ku takrifashay ayaa hubaal ah oo aad samaysay musuq ama wax khaldan inaad samaysay ayaa la hubaa haddii qofka wariyaha ah lagu arko inuu ka mid yahay urur siyaasadeed ama xisbi ama koox inuu taageersan yahay waxay saameyn ku leedahay isaga iyo xarunta warbaahineed uu ka tirsan yahay
حتى هذه يعني بركة وكل مقياس شقة إلا لا تصدق أما عد جرب سيو أما شوكوي كي مقالة يوحيرها وقريه أي عد وحاجة ناسه وحين سامين كي يلا نسا ورباهين تيسي وحن أوجاتان ضدك أنورياش أهل يورياش بقى وحن وشيء يعني قالك الرجال أنوريها كو أمنتد أما أتكون بجيسة وحويان كرسوني هديك كرسوني دي أمنات دي أنتو أتكون بجيسة ناسي ما بجيسة كده وريا أديك روح كليو أدت كويسة وحويان إن يكون كرسونيين وحكي سمعت هلا قرا ولا جو قرا حرق أما السوشيال ميديا أما قفوا إسكاشيرو لما أعمله إلا ورباهين تعيشوا لكن شكله ورباهين ما كشكته ولا آمنية ولا قادرية محير ذلك ورباهين وآمنسيين وين اللي جسته لكن آمنات ده سوى قدر مهم أو واحد كتير كأتكون بسنت هاي بقى وياه marka hadii cid lagu xaqliyo oo aad cid inaad tahay la garto la arko waxa xubaal ah in dadkii kalsoonidooda ay lumayso oo aadan dadkii wax sax ah u sheegi karin marka la baahinayo la rabo in la kofar gareeyo oo lalaha siyaasadda marka la rabo in la kofar gareeyo waxay u baahan yihiin dadka ku daawanaya ama ku dhageysanaya warbaahintaada la socda waxay u baahan yihiin war sax ah oo siday wax u jiraan oo ciidan isku soo sharaxday ama ciidan Allah wadaahay cida ay tahay waxay aaminsan tahay aqoonteeda qorshaheeda iyo baahida dadka waxay ka qabanayso dadka aad awoodda saaraysaana hiysan noqon marka yaani baahida marka laga hadlayo la rabo in laga xisaabtamo qofkan ololaha siyaasadda ku jira waxa weeyaan hooyada dariiqa fadhida yaani cunug ilmaha yarka ay soo barbaaraya ee waxbarashada ku jira gabadha foolanaysa isbitaal la'aantu hayso dadka miyiga ku nool biyo la'aantu hayso dadka abaartu maalin sanad ku soo noqoto dadka magaalooyinka jooga ee dawooyinka bilaatayada laga iibinayo raashinka dhacay gurigaaga lagu kariyo maalin kasta dadka la iska dilayo bilaa qasabta la iska dilayo maxkamadaha cadaalad darradu ay ka socoto waxyaabahaas way waxyaabaha u baahan in muhiimadda la saaro qaybaha dambe ee barnaamijka kulanka wariyaha idaacadda kulmiye ayaan saaxiib la soo gaarnay waxaan ka durdaaranaya in sharaxaadan oo muhiim u ah bahda saxaafadda iyo inta kale ee saxaafadda la howlgashaba ama la shaqeysa aanan sii dhameystiri karin hase ahaatee maalmo kale ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa casharada ama tababarka muhiimka u ah xilliyada shaqooyinka adag ay saxaafadda wajahayaan barnaamijkeena maanta kulanka wariyaha idaacadda kulmiyena waa naga intaas nabadgeliyo haddii aad weliya tahay warbaahinta waxaa la yidhi haddii aad weliya tahay warbaahinta waxaa la yidhi waa waran laba able warkaad sheegaysa hubi waa waran laba able warkaad sheegaysa hubi